السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan karsanaynaa bariis isku dhex karisa maraqa waxa laga baxshay digaag ama dooro hadba saad u taqaan ama chicken iyo bariis bakeeri bariis halka waxa inuu u karaya chickenkii maanta waxa la rabaa intaas in isku dhex kariskeena caadiga ahayd laga soo saaro hadii Ilaahay qadaro challenge-gi wali waa socdaa ma dhamaanin marka bariiska isku dhex kariskaaba hadda lagu challenge tamaya marka digaagan iyo bariiskan waa la isku karinaya sidii isku dhex kariskeena caadiga ah yaa la isku dhex karinaya waxa la rabaa digaagu inuu horta ama doorada ama chicken ku cabaar yar casaado luqadaha lahjadu way badan tahay Soomaaliga hal xabo kamida ka qabso chicken waa caadi inaka malihin laakiin way isticmaalaa digaagna inaka malihin waan isticmaalaa waa Arabi chicken waa English laakiin maxay ku taan Soomaali dhinaca ka qabo dhinaca ka celi luqad kasta dhinaca ka qabo dhinaca ka celi dooro waa kaasa la socod wanaagsan gabdhihii soo challenge bariiska isku dhex gariska ah aniga horta bariiska ma cuno ma jecli laakiin waan ku qasbanahay inaan kariyo aan ka qayb galo nin walba sidoo awoodo ama uu u garanayo Soomaalida xitaa basari buulkeeda ka taqaan gabadho areeba ama baali hadaad u timaado waasta ka kala hagaaji haddana ma hagaajin kartid ila gurigeeda iyada ka taqaan Sooma marka digaaga waxa rabaa inuu casaado qurux bato kadibna bariiska lagu dhex kariyo isla kanun baan ku karinaynaa birtaanaan ku karinaynaa laakiin digaagu suu u macaanaado abaar kisto inuu yar casaado baan rabaa hadii Ilaahay qadaro inuu qadaro marka inuu iga gubtana ma rabo inuu ii casaadana waan rabaa ama ii guduuto baan wax laga arkaynba karaale ahaada dee la socod wanaagsan qudaartii oo dhan hadda ku soo daray toontii kamsar caleentii yaanyadii iyo xabuubtii basashii barbaroonigi wixii oo dhan baan hadda ku daray bariiskana mari wax yar ka bacdi baan ku darayaa marka qudaarta hal mar soo karto ayaan isagana ku darayaa waayeen waa sideedni uun saanun baa la iskugu dhex karin jiray dee waqti badan baa aniga igu dambeysay marka umay hilib baa lagu dhex karin jiray digaagana waa lagu dhex kariyaa marka digaaga hadda waxaan rabnaa inaan hilibka yarayno haddaan Soomaali nahay hilibka inaan yarayno waa muhiim aad bay muhiim u tahay bariiska baan hadda ku daraynaa sababtu tahay waxaan rabnaa bariiska iyo inay isla qalaysmaan iyo qudaarta say rabaan inay isku qalaysmaan kole ana qalays baan wax kale oo ma aqaan wala isku walaaqaya
kadibna bakeeri biyo iyo maraqa intii ka hadhay ayaan ku dareena haddii ilaahay qadaro laakiin waa inuu cabaar weynu huuraa horta waan daboolayna waan isku soo noqonaynaa waa la isku soo noqday saanu ku soo baxay maasha Allah tabaarakallah maraqii baan ku miiraynaa hadda la taaban maayo si aan digaagu inooga googo'in maraqii baan ku miiray bas خلاص isku dhamaatay ma taabanayno ya sideedaasay ahaanayaan marka haddaan taabano waxaan ka cabsanaynaa inay ila wuxuu waa digaag la soo qaleeyay la soo karkariyay inay naga googo'aan marka dabkaan u gaabinaynaa khalaas way isku dhamaatay bariiskana intaasaa ku filan xoogaa buu isaga laftigiisu dabkaas ku qaraysmay saliidda iyo isku qaraysmay marka khalaas dabkana waa u gaabinay isku soo noqod wanaagsan waxaan fiirinaynaa iyo aakhirka sidoo inoo soo noqdo insha Allah waan isku soo laabanaynaa qadadeeni saanay ku soo dhamaatay maanta qadana iga keenteena waa afurka ka bacdi waa casho afurna maaha qadana maaha waa cashadii bariiskeeni maanta oo la karinayo waa kana saanay ku soo baxay maasha Allah tabaarakallah yaaba sheegi kara casho noqday challenge-gii bariiskii waa ka marka maasha Allah tabaarakallah waa inoo soo dhamaaday waa bariis nafaqaysan waa bariis oo dhaqankeennii oo dabeeciya oo maasha Allah tabaarakallah yacnihi meel loo dhaafo male bariiskan qudaartiisii oo lagu kariyay digaagiisii chickenkiisii nafaqadiisii oo dhan oo iswadato isku bislaatay waa tana waxaan leeyahay sidaan u karsada hadda ka bacdi si nafaqada iyo bariiska iskugu cuntaan waa bariis cajiiba meelaha Soomaaliya hadda joogtaan basmati oo cunina bariisyadan waaweyn oo tayada leh cuna hadda wadamada qurbaa joogtaan meelaha dabeeciga ka gada wadankeennaba wuu tagaa bariiskani isagoo ka yar duwan oo Soomaalidu cari kari iyo waxaas ay u yaqaanaan laakiin haddii si wacan aad u kariso dabka u gaabiso qudaarta iyo waxaan oo dhan intaad ku darto aad dabkana u gaabiso kaala iska arag buu soo baxaya macaan walaalayaalow waxaaba mushkilad iga haysata fiidiyoyadii baan ii soo degeenba oo ina duubmaynba taleefanadii baa cilad iga gashay marka wixii aan ku dhex jiro go'ayaaba hamishay waa inaad bir canjeeladan ama maqligan aad heshaa ama digsi lamid ah shay aan gubaynin oo waqti dheer siinaya waa inaad heshaa waqti dheer markaan ka wado maadaama bariis aan basmati ahayn oo bariisyada lamid ahayn waqti dheer buu ka rabaa si aad macaankiisa u gaadho u hesho marka waqtigaas aad u siisaan raadiya shay aan gubaynin haddii Ilaahay qadaro fiidiyowgeenan maanta duubaynay saano inoogu soo gabagaboobay like iyo share subscribe noo saara waxba idinma yeelaayo maxay haytay anagana waa dhiirigelin bay noo tahay waxaan idinkaga tagayaa Ramadaan mubaarak assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh